السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhaw haddii aad cusub tahay magacayga waa Dr. Yaabe. Maanta waxaan kula wadaagi doonaa buugaagta ugu muhiimsan ee la isticmaalo markii la joogo clinic, khaasatan majorka afarta ugu muhiimsan majorka markii la joogo oo la isku dhaho internal medicine, pediatric, surgery, obstetric gynecology. Buugaagta ugu muhiimsan ee la isticmaalo ama buugaagta ugu muhiimsan ee ku anfacayo ayaan kula wadaagi doonaa. Waxaan ku hormari doonaa internal medicine. Internal medicine runtii horta waa inaad ogaataa inuu yahay bad aad inuu u weyn yahay macnaha waxyaabo badan aa soo hoos galay internal medicine-ka. waxaa kamid ah gastroenterology, nephrology, neurology, cardiology, waxyaabahaas oo dhan waxay soo hoos galayaan internal medicine. So ani waxaan is leeyahay marka internal medicine-ka waa midka ugu ballaaran ee intooda kale markii lala barbar dhigo. Haddaba internal medicine-ka marka buugaagta ugu muhiimsan ama buugaagta ugu quruxda badan ee la isticmaalo maxaa kamid ah 3 buug ayaan kaala wadaagi doonaa internal medicine-ka. Buugga koowaad wuxuu noqon doonaa buug la dhaho Davidson, xaggan ay soo saari doonaa. Runtii Davidson aad ayuu u wanaagsan yahay, wuu qurux badan yahay. Haddii aad tahay clinic, runtii buuggaas ayaan aad iyo aad kula talin lahay. Okay, Davidson buugaagta kale waxyaaba ugu kala duwan yahay waxaa kamid ah detailing yar ayuu kuu sameyn doonaa, wuuna qurux badan yahay runtii akhriskiisana wuu fudud yahay. Markood waxaa laga yaabaa inaad ku wareertid, laakiin I'm sure waa buuggaas haddaa hal mar akhrisid ama 2 mar inaad micnaha fahmi doontid. Okay, laakiin arday qaar sometimes waxay ku wareeraan buugga markii koow ay bilaabayaan qaabka buugga, laakiin waxaa laga yaabaa ama haddii aad buuggaas 3 mar 4 mar akhrisid inaad fahmi doontid runtii wax badan aad ka faa'iidi doontid. Buugga labaad ee aan kula talinayo wuxuu yahay buug la dhaho Harrison. Asiga naftirkiisa uu aad u wanaagsan yahay, inkastoo Harrison-ka uu aad u ballaaran yahay markii laga barbardhigo kuwan kale uu ka weyn yahay macnaha buug aad u weyn waaye. Laakiin runtii haddii aad chance u helaysid Harrison haddaa akhrisid I'm sure internal medicine qofka ugu soo dhawaanayo malaha. Buugga saddexaad ee aniga aadka u jeclaa wuxuu yahay buug la dhaho Danish. Okay, so Danish internal medicine aad u weyn yahay asiga naftirkiisa, inkastoo uusan gaarin Harrison-ka, laakiin waa buug runtii detailed ay macnaha aad u wanaagsan yahay. waxyaabihiis way soo kooban yihiin waana fudud yahay macnaha. buugaagtan kale markii la fiiriyo qaabka oo Danishka aad ay u fudud yahay. Okay, so haddaa rabtid marka internal medicine fudud inaad akhrisid waxaan kula talinayaa Danish aad. Haddii aad rabtid laakiin detailed inaad u fahantid Davidson iyo Harrison aad. Okay, let's go to pediatric. Pediatric buugga ugu fiican. Pediatric horta wuxuu daraasayaa unitka iyo childrenka labadaba inta badan way hoos imaadaan. Okay, so labadaas daarid marka inaad isku daraasaysid buugga ugu quruxda badan ugu wanaagsan waa buug la dhaho Nelson. Okay, Nelson Pediatric kor ayaan soo saari doonaa. Nelson wax ku gaaro pediatric malaha. Haddii aad tahay clinic iyo haddii aad tahay internship labadaba buuggaas ayaan kula talin doonaa. Xitaa haddii aad tahay pediatrician oo pediatric inaad baratid aad rabtid buuggaas Nelson-ka ha dhaafin, gacantaada yuusan ka bixin macnaha. Meel kasta aadaysid qaado Nelson qaado. Okay, so Nelson waa buug runtii aad iyo aad u wanaagsan, aad iyo aad u qurux badan. Let's come to obstetric gynecology. Obstetric gynecology wuxuu daraasayaa obstetric-ga iyo gynecology-ga labadaba. So buugaagta ugu muhiimsan aan kula talinayo haddii aad tahay clinic iyo haddii aad tahay internship wuxuu yahay buug la dhaho Tenth Teacher. Okay, Tenth Teacher asaa laba qayb qayb wuxuu leeyahay obstetric kaliya qayb wuxuu leeyahay gynecology kaliya ayuu leeyahay. So obstetric kaliya gooni u daraasay, gynecology gooni u daraasay. So Tenth Teacher ani waxaan is leeyahay waa best macnaha kan ugu fiican ee obstetric gynecology la isticmaalo wuxuu yahay Tenth Teacher. kor ay soo saari doonaa buuggaas. Ani marka obstetric soo baranayay waa soo bartay buuggaas soo qaatay, sidoo kale markaa dhameeyna buuggaas daraasay macnaha. Okay, because buuggaas markastoo akhrisid detailing waaye, sidoo kale su'aalo ama cases ayuu kuu sameyn doonaa markii aad chapter kasta aad dhameysid, waana maxaa la yiraahdaa informative macnaha. Okay, very detailed wuu yahay. Buugga kale aan ka hadlayna ama ugu dambeeyo wuxuu yahay surgery. Haddii aad tahay clinic runtii Bailey and Love wax gaara malaha macnaha. Okay, aabaha surgery waa Bailey and Love waaye. Haddii aad tahay internship Bailey and Love kula talinayo. buug kale oo waxaa jira oo very detailed xoogaa yar, laakiin Bailey and Love akhrina haddaa dhahdid waqti uma helaysid. Bailey and Love aad u weyn yahay macnaha buug waxaa waaye xitaa qaadan kartid ma. So buug very waxaa waaye informative oo weyn waaye. wuxuu ku fiican yahay markii aad tahay clinic aad tahay basic ka soo baxday clinic aad joogtaa surgery qaadanaysa. Bailey and Love soo gado xaafada dhigo maalin kasto daraasay Bailey and Love daraasay. Okay, laakiin haddii aad tahay internship ani waxa ku hayaa buug aad diyaariyay oo surgery qaasatan. Okay, oo runtii very detailed marka internship marayay
ayaan diyaariyey. Sidoo kale xitaa waxaa diyaariyey obstetric gynecology oo detailed oo maxaa la yiraahdaa runtii aad u qurux badan waa diyaariyey. So haddii aad tahay marka internship ila soo wadaag, waxaan kusii doonaa obstetric gynecology oo diyaarsan oo notes qurux badan sidoo kale surgery oo note oo qurux badan ayaan kusii doonaa oo kaa caawinayo inaa internshipkaaga si qurux badan uu kugu dhamaado. haddii aad su-aal qabtiin fadlan xag commenting nala wadaag. haddii aad buugaag kale ay maskaxdaada ku jirto nala wadaag ayada xataa naftirkeeda xag commentiga. Thank you so much guys.